bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan ise walba muuqaalka igu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan oo bartaan youtube-ka ku leenahay runsheeg saaxiibayaal waxaa kusoo dhawaataan warbixin gaar ah aynu ku eegi doono ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo hor istaagay in baaritaan lagu sameeyo wasiirka batroolka haddaba xagee ku dambeysay u yeeristii wasiirka batroolka maxaase ka jira in xeraalyaha lagu wargeliyay in kiiskaasi uu iska dhaafo saaxiibayaal warbixintaas oo faahfaahsan intaynu gudagelin waxaa idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan haddii aad nagu cusub tihiin like-na aan ugu dhiirigelisaan insha allah saaxiibayaal sida hordhaca aad warkayagaba ku daawateen warbixintaasi haddaynu eegno ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa warar soo baxaya waxay tilmaamayaan inuu hor istaagay in baaritaan lagu sameeyo wasiirka batroolka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud ayaa 21 abriil u yeeray wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Axmed oo xiisad siyaasadeed ee dalka ka abuuray kadib heshiis shidaal oo la saxiixday shirkad Mareykan ah heshiiska shidaalka ee wasiirku la galay shirkadda Coastline Exploitation Ltd ayaa waxaa diiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku tilmaamay mid sharci darro halka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta saacad kadib oo isna sharci darro ku tilmaamay si kastaba kadib u yeeristiisii weli war waxaa lagama hayo haddii ay kulmeen xeer ilaaliyaha iyo wasiirka oo kulankooda la filayay in uu dhaco 25 abriil 2022 sidoo kale saaxiibayaal warar aan helayna ayaa tilmaamaya in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble wasiirkiisa ku wargeliyay inuusan tagin maxkamadda ama xeer ilaaliyaha uusan u tagin si aan looga helin siro badan oo fakiyo sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu dhagaha ka furaysto in haddii loo yeero iyo haddii kaleba waxaa sidoo kale warar soo baxay ay tilmaamayaan in wasiirka uu dalka hadda isaga bixi rabo waxa saaxiibayaal shakiga sii badiyay in xeer ilaalintu aanay soo saarin war saxaafadeed ku saabsan haddii ay kulankoodu dhacay iyo haddii kale balse waxaa jira warar sheegaya in wasiirka batroolka uu dhagaha ka furaystay yeeristay kaga timid xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka taasoo muujinaysa in uu qaatay amarka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo saaxiibadiis wasiirka amniga gaashaandhigga iyo wasiirada kale ee u dhaweeya hadda waxay bilaabeen inay ka faa'iideystaan marxaladda kala guurka waxayna dhacayaan hantida ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel walba oo ay taalo iyagoon u aabayeeleen danyar iyo sidoo kale cid kasta oo leh hantidaasi iyadoo dhowr jeer oo hore lagu qabtay hanti ay dawladdu si gaar ah u leedahay iskada mid shacab leeyahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo saaxiibadiis waxa ay hadda ku howlan yihiin inay dhacaan hanti kale maadaama doorashadii madaxtinimo ay soo dhowdahay wasiirka ayaa la filayay in 25 bisha abriil ay kulmaan balse isagii xeer ilaaliyaha balse wax war ah kama soo bixin inay xeer ilaaliyaha kulmeen waradaan ka helayna dhinacyadaasi ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble wasiirkiisa ku wargeliyay inuusan tagin amaba uusan u tagin xeer ilaaliyaha haddii xeer ilaaliyaha uu tagana ay howlo badan faraha ka baxayaan sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa lagu wargeliyay inuu hawshaani kala faraha kala baxo si dawladda kale oo timaada ay kiiskaasi sii guda gasho waxay saasi ka dhigan tahay in sidii dacwadii badda Kenya ay sii dheeraan karo oo heshiiskaasi sii dheeraan karo iyadoo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa ay dadka Soomaaliyeed ka dharagsan yihiin falalka xun ay gudaha dalkeena ka sameeyeen sidoo kale waxaa xusid mudan saaxiibayaal in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uusan ahayn shakhsi qowl leh waa uu la jeedo qof ballan leh sidoo kale waxa uu tagay Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka waxa uu kale kaga sii tagay Djibouti intaasba waxa ay sameynayeen ballanqaadyo ay sameynayeen asaga oo ay lahaayeen is sharax si aan ku taageerno maadaama ay ka dhaxarkeen inuu yahay shakhsi la dirsan karo oo haddii uu madaxweyne noqdo hawlo badan wadamadaasi u fulin kara siyaasadaha isdiidan ee wadamada Imaaraadka Kenya iyo sidoo kale Djibouti ayaa keenay in uu u bareeri waayo inuu tartanka doorashada ka qayb galo maadaama uu yahay shakhsi la isku haysto oo uusan lahayn aragti siyaasadeed oo isagu si gooni ah u leeyahay wasiir Cabdirashiid ayaa markii uu heshiiskani soo baxay waxa uu sheegay inuu la ogaa
ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble lacago badan ay ku qaateen isagoo si sarbeeban u weeraraya balse dhinaca kale ugu rogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. bulshada Soomaaliyeed waa ay fahamsan yihiin madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa ugu weyn ee maanta uu ku faanay inay tahay ammaanada ummadda Soomaaliyeed ay u dhiibteen inuu ilaaliyo. waxaa xusid mudan inta aan heshiiskan la gelin in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka warhayay in heshiisyo ay dhici karaan oo kuwaas dalka dhibaato u keeni kara, isagoo taa ka duulaya ayuu soo saaray warqad taasoo kaga hortagayo in aan dhulka dawladda la iibin karin la kireyn karin, sidoo kalena hantida ummadda Soomaaliyeed aan lagu takrifali karin inta dawladda cusub ay ka dhalanayso maadaama lagu jiro marxalad kala guur ah. madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxa uu isku dayay in uu kaga aarsado kadib markii isaga lagu helay isaga oo dhisanaya dhul ay leeyihiin ciidamada badda, iyada oo saraakiisha hogaamisa ciidamada badda ay tilmaameen in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu sifa sharci darro ku dhisanaya dhul uu leeyahay ciidanka badda. taasoo ka jawaabaya ayuu isku dayay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble in madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku magac dilo in heshiis 7 milyan uu galay isaga iyo wasiirka. sidoo kale saaxiibayaal wasiirka iyo madaxweynaha heshiis ma bageli karaan, sababtuna waa in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ay qorshahaasi isla soo dejiyaan sida dowladnimada ku cad. saaxiibayaal tuhunka waxaa sii dhaliyay oo kale in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble codsaday in waraysiga wasiirka dib loo dhigo si dawladda cusub ay imaanaysa ay la wareegto ilka baarista sharciga daramada sharci darrada ra-iisul wasaaruhu ku gacan sayray. sidoo kale sida uu tilmaamay wasiirkiisuna uu u ogolaaday in uu shaqadiisa sii wato. saaxiibayaal waxaa xusid mudan in haddii ay daacad ka tahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble heshiiskaana uusan ka warqabin oo uu yahay mid sharci darro in wali wasiirku oo shaqadiisii wato lacagta mushaarka dawladana uu ka qaato, sidoo kalena oo wali heshiisyo kale uu geli karo. warar soo baxay ayaa tilmaamaya in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu ka macaashay lacag fara badan heshiiskaasi uusan doonayn in hadda la furo maadaama dawladdu ay marayso heer gabagaba. balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu diyaar u yahay in mar walbaba uu ilaaliyo hantida qaranka ummadda Soomaaliyeed, balse rooble iyo saaxiibadiis ay rabaan inay guriga ka dhisaan hantina ka tabacadaan hantida ummadda Soomaaliyeed. sharciga maamulka dawladda ayaa dhigaya in shaqada laga joojiyo mas'uulka xilkasnimo darro lagu helo ka hor inta aan baaritaan rasmi lagu sameyn qofka xilka haya, waana tan muujinaysa in rooble uusan doonin in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo wasiirkiisa dhacay hantida ummadda Soomaaliyeed. saaxiibayaal waxaa iska cad in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo saaxiibadiis ay hadda diidan yihiin baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena xeer ilaalinta ay ku wargeliyeen in ay kiiskaasi faraha kala baxaan dawladda cusubna ay kiiskaasi halkaasi kasii amba qaado si ay u xalaashadaan lacagtana ay uga sii qaataan shirkadda. sidoo kale saaxiibayaal waxaa laga warsugi doonaa jawaabta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama uu ka dhaga adeegay wasiirka u yeeristay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud 22 Abriil. waa saaxiibayaal inta seen kusoo gabagabeynayna warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa subscribe noo saadhaan, like na inuu dhiirigelisaan gamalaalka furataan surbixnadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle.